السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان هدا gudaheeda idin kala soo hadlayaa hoolka madaxtooyada dawladda Puntland oo ay hadda ka socoto xalfada lagu xusayo xuska 1 Agoosto waxaan mar dhow aan idin timin doonaa muuqaal live ah oo aad ka daawan doontaan barta aanu ku leenahay Facebook ee warbaahinta Dabarani Media intaan live-ka la soo gelin ka hor waxaan isku dayayaa inaan mikrofoonka idin la dhex maro qaar ka mid ah siyaasiyiinta odayaasha iyo dadkii waqtigii 1990 caawa oo kale goobjooga ahaa inay naga warbixiyaan taariikh kooban oo ku saabsan asaaska Puntland waxaa ka mid ah mas'uuliyiinta aanu kula kulanay hoolka madaxtooyada dawladda Puntland gudoomiyaha degmada Garowe Axmed Barre Axmed Mudane markuu aad ku soo dhawaad Dabarani Media adagoo naga warbixinaya dareenka ku aadan caawa aad iyo aad baa mahadsantihiin dareenkayguna aad buu wanaagsan yahay maanta xafladii iyo socodkii iyo dabaaldegii laga sameeyay xuska sanad guurada 12aad ee dhismaha ama asaaskii Puntland iyo caawa aan xafladii halkan u fadhino aan sameynayno aad iyo aad baa dareenkaygu wanaagsan mudane maxaad ka xasuutaa 1998 caawa oo kale 1998 markii la dhisayay dawladda Puntland waxaan ka xasuustaa waxa lagu dhisayay xarada 54 xarada 54 waxa isu yimi ergooyin aad u tiro badan oo ka yimi gobolada Puntland oo dhan ma ayeen jirin hoteelo waaweyn hoteeladu aad bay u yaraayeen 2-3 hotel baa magaalada ku yaalay kuwaas waxa la saxiyay dadkii xoogaa maaragtay madaxda ahaa intii kale dadkii waxa la sameeyay xaafadaha loo qaybiyay xaafad walba joodariya la soo gaday waa loo dhigay dadkii waxa laga saaray xaasaskii iyo guriyihii waa la baneeyay kadibna halkaas lagu dhisay lacagta raashinkana waxa la sameeyay dadka free baa lagu siinayay maxaa la yiraahdaa magaalada culayskii oo dhan wada qaadatay ilaahayna si sahlan buu hawshii u gabagabeeyay dawladda Puntland baa ku dhisantay madaxtooyadii ugu horeysay baan xasuustaa waxay ahayd iskuulka farsamada gacanta ee ku yaala iskuulka Gambool agtiisa halkaas madaxweynuhu fariisan jiray dawladdii ugu horeysay oo la dhisay waxay 9 wasiir ku xigeen ma lahayn 9 wasiir 9 agaasimo guud baa la dhisay dawladdii aad u tayo fiican bay ahayd maxaa la yiraahdaa kadib ayaa waxa la bilaabay muddo kadib in wasiir ku xigeen hal mid ah oo Axmed Aadan Carabaan hadda xasuusto ayaa noqday wasiir ku xigeenkii koowaad la sameeyay marka wax badan baa ka xasuustaa ka waran isbedelka waqtiga aad ka sheekeynayso duruufta lagu dhisay Puntland iyo hadda oo ay ka soo wareegtay 22 sano isbedelka ka waran isbedel yaab loo ahaa waxaan ku sheegin waxaan xasuustaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf markii la doortay nin la yiraahdo Cabdi Cali Guureeyo oo hal gaari oo Leyla Calawiya ka lahaa ninka gaarigiisii baa madaxweynihii maaragtay la siiyay kaas isticmaalay magaalada baawur kale noocaas ma joogin marka waxay ahayd wax laga yaabay aad iyo aad bay cajaa'ib ahayd hadeerna magaalo maaragtay aad u weyn maxaa la yiraahdaa hoteeladooda ay ka badan yihiin cid kasta oo martiyo timaada xafladii hoolashaan oo kale lagu dhisanayo aan 54 iyo hoolasheedii ciidanka lagu dhisayn maxaa la yiraahdaa aad iyo aad bay uga badan tahay maalinka mudane gudoomiye aan kula kaftamay waqtiga adigu xagee ku sugnayd waqtiga anigu magaaladan ku sugnaa waxaan xasuustaa markaa waxaan keenay warshada barafka maxaa la yiraahdaa Kismaayo baabuurta ii saarayd markaa waxaan dejinayay meesha hadda ay tahay markii Puntland la dhisay kadibna Puntland markii la dhisay ayaan iyadana rakibay صح ما شاء الله marka ganacsi baan ku jiray farmashiyaal baan lahaa maxaa la warshadaan dhisayay korontadana markaas aan abuur صح ما شاء الله waqtiga ganacsadaad ahayd waxaad ka shaqeynaysaa sida magaalada nal u heli lahayd ama koronto ay u heli lahayd mudane aad u mahadsantahay korontadii hadda maanta aan xilligaas soo abuurnay maanta waa 24 saac waa mid caawa inoo shidan waxaana u dheer waliba solar iyo windy iyo generator baa laga dhaliyaa shirkad weynaatay oo ilaa 10 milyan oo dollar ka badan ku kacaysa weeye magaaladana dabkeeda 24 saac ku filan yahay laakiin markaas aan asaasnay waa ka mudane gudoomiye ugu dambeyntii maxaa firin u reebaysaa shacabka reer Puntland shacabka Puntland waxaan leeyahay Puntland waa lagu barwaaqoy Puntland maxaa la yiraahdaa la'aanteed waxaan noqon lahayn dad aad iyo aad u liita oo deegaamo kale ku kala qaybsama Puntland hal la ilaashado hal la isku tiirsanaado amniga hal la adkeeyo maxaa la yiraahdaa horumarkana hal laga qayb qaato dawladana hal la taageero waxaanu kula kulannay hoolka madaxtooyada oo ay hadda ka socoto xuska sanad guurada 22aad ee dawladda Puntland 1 Agoosto Cabdi Axmed Cabdi Xaabsade oo kamid ah dadkii aasaasay dawladda Puntland Axmed markaad ku soo dhawaad Dabarani Media fiican waa soo dhaweynayaa midiyaha waa soo dhaweynayaa habeenkana waa habeenaanu tabaynay in badan baanu tabaynay
oo la la'aa goormay halowday caawa la soo helay ay ka waran dareenkaaga caawa dareenkaygu waa la soo helay waa kudhe xoolo lumay oo la soo helay weeye oka axmedow waxaa tahay siyaasi rugcadaaya oo ay bulshada reer puntland kugu faanto 1998 caawa oo kale maxaa ka xusuusataa caawa kale waxaan ka xusuustaa inaannu dhibaato badan la soo kulannay oo dhulku cidlo ahaa oo gaajo ahayd oo aan gogol la haysan oo aan waxba la haysan yaan ka xusuustaa haye waxaa ka mid tahay dadkii puntland aasaasay dhib intee leeg baydin ku qaadatay xaggee lagu aasaasay puntland taariikh yaroo kooban caawa oo kale 1 Agost 1998 wuxuu noga taataabo caawa kale horta waa aasaasnay oo markaa puntland waa dhisnayd laakiin waxaa loo soo maray waddo dheer oo muxuu ahaa 5 bilood yaannu garowga fadhinay oo aannu dhisaynay puntland inay dhisanto oo dagaal iyo muxuu ahaa meel walba nala kaga hor yimi waxaannu ka soo dabaalanay badweyn hindiya yaannu ka soo dabaalanay waannu ku nimay habeenkii 1 Agost habeenkaa waxay ahayd habeen aannu ku soo seexannay wixii aannu hawl haynay habeenkaannu muxuu ahaa ka tashanay weeye axmedow waxaa tahay nin siyaasiya bulshooyinta reer puntland ay ku daawanaysaa caawa bal fariin u reeb waxaan u reebayaa puntland waxa weeye waxaynu innaku samaysannay oo aynu leenahay oo ay tahay inaynu ilaashanno intaa waa la isqabanayaadoo madaxda waa isbeddelaysaadoo muxuu laakiin puntland waa taagan tahay puntland ayaan lagu cayaarin aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaanu kula kulannay hoolka madaxtooyada puntland oo ay ka socoto hadda xalfadda lagu xusayo xuska 1 Agosto dowladda puntland waxay jirsatay 21 sano oo nabad iyo horumar ah waxa ila jooga oo hadda aan dul taagnahay General Morgan oo ah siyaasi rugcada ah kana mid ahaa musharaxiintii u loolamayay kursiga madaxweynaha puntland 2019 mudane markii aad ku soo dhawaado waraan media adoo naga warbixinaya dareenkaaga aad iyo aad baan runtii waxaan ugu hambalyaynayaa dhammaan shacabka reer puntland maanta waxaan ka qayb gallay munaasabaddii lagu xusayey sanadguurida 21aad ee maanta shacabka bulshada reer puntland iyo ciidamada qalabka sida oo aan kala maqnay maanta ku mareen aad iyo aad bayna u xiiso badnayd waxaan leeyahay marka u hambalyaynayaa dhammaan shacabka reer puntland waxaana leeyahay maanta taariikh 21 sano jirsatay baad maanta maraysaan reer puntland 21kaa sanana wax badan baa qabsoomay wax badanoo qabsoomana waxay ku qabsoomeen wadajirkiinna iyo midnimadiinna iyo isku xiraanshihiin inay halkaa ka sii wadaan saa hore ugu socotaan una gaartaan meeshaad u socotaan waayo puntland asaaskeedii wuxuu ahaa in soomaalinimada lagu raadiyo soomaalinimada waa lagu keenay soomaali maanta inay noqoto awooddeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii puntland waxay ahayd dowladdii ka shaqaysa markii la asaasay in soomaalinimada iyo midnimada soomaaliyeed inay soo noqoto tiina weli waddaday weli ku taagan tahay in soomaalida ay sharaftii iyo karaamada adduunka ay ku lahayd soo ceshato mudane maxaad ka xusataa 1998 caawa caawo kale inkastoona goobjoog ka ahayn laakiin caawo kale waxaa joogay jenaraal xaabsi halka agtay fadhiya baa joogay caawo kale waxay ahayd maalintii la asaaska tiirka loo taagay guri marka la dhisaayo marka guriga tiirka loo taago oo tiir adag uu yeesho oo markaasaa saqaf la saaraa waxay ahayd guri ugu horreeya la dhisay caawo kale tahay puntland la dhisay dee 21 sano guri la dhisaayey oo haddana dabaqii la sii saaray oo horumar sii gaaray ee maanta la mid tahay marka waxaan leenahay hore u socda gaalaha u noqonaya hore u socdaan leenahay ila joogta luul maxamed warsame oo ka mid ah guddiga qabanqaabada xalfadan quruxda badan aad u jeedaan luul markuu aad ku soo dhawaado waraan media inkii naga waran dareenka ku aadan caawa oo kale 1998 ما شاء الله هذه أدبن وقف فرحسناهي حفلة عاوة إلى أسبوعيا أردن أبابل كي كسعودي بوتلان أردن جارهانا عاصمة ده guddiga qabanqaabada ayaan gudoomiye ku-xigeenka ahaa gaashaan oo dhinacayga fadhiya ayaa gudoomiyihiia waxaan ku faraxsanahay wax badan oo qurux badan inay qabsoomeen caawana run ahaantii waxaan dhihi karaa
waa xusuus gaar u leh dadka reer Puntland waxaan dhihi karaa waa xafladii ugu qurux badnayd intii 21 sano baan dhihi karaa waxaan dhihi karaa waa dabaaldegii markii laga reebo 13 wixii ka horeeyay waa dabaaldegii u horeeyay oo muddadii 6 sano hadeer ay kow tahay August la qabto maanta dadweynaha waxa ka muuqday sida aad arkaysid shacni iyo farxad baa ka muuqatay waxaan soo xasuustay sawiradii laga soo duubi jiray oo la soo gelin jiray YouTube-yada xorriyadii yaani dadkoo dhan hal qalbi bay lahaayeen maanta shacabka Puntland oo dhan hal qalbi bay lahaayeen waxayna ku faraxsanaayeen dabaaldegooda khaasatan ciidamada iyo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan arday ha noqoto hooyooyin ha noqoto gobolladii ha noqoto dadkii loo baxshay walaalaha Puntland ee barakacayaasha ahaa ama IDPs dadka u yaqaanaan ha ahaato waad u jeeday farxadii maanta meesha lagu maray iyo wixii ka dhacay aad iyo aad bay noo xiiso gelisay waxaan rabaa inaan dhaho hambalyo qof kasta oo reer Puntland ah adduunka meesha uu kaga nool yahay aad iyo aad buu mahadsan tahay waalul oo dhammaan shacabka reer Puntland hawada u marinaysa hambalyo salaan iyo galgacayl ku aadan xuska 1 Agosto waxaanu wali ku jirnaa barnaamijkii aanu ku eegeynay taariikhda iyo waqtiga la asaasiyay Puntland caawa oo kale 1998 waxa ila jooga agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo sportiska Puntland mudane tagana marka hore ku soo dhawo dabarani media inki waa ku dhawahay aad baa u mahadsan tahay kaaga mahad celinaya kulankaaga ka waran caawa dareenka ku aadan xuska 1 Agosto waa habeen xiiso badan waa habeen muddo aan u soo dabaaldegaynay inuu caawo kale oo gunaanadka noqdo 1 Agosto barnaamijkii ayaamahan soo socday maanta dabaaldegii xiisaha badnaa iyo caawa oo ah habeenkii loo damaashaadayay 1 Agosto marka aad bay u farxad badan tahay bulshooyin badan oo kala duwan baa jooga marti sharaf baa joogta bulshooyinkii maaragtay maray baa jooga aad iyo aad bay u xiiso badan tahay muuqaal guud oo qurux badan baa caawa maaragtay muuqda mudane aan kula kaftamay waxaad u egtahay dhalinyaro laakiin 1998 maxaad ka xasuusataa waa runta waa xasuustaa si fiican wuxuu ahaa waqti ay bulshada Puntland dadkii aasaaska u ahaa buddigayaasha ahaa ay dareemeen in baahi loo qabo midowga Puntland in loo aasaaso dawlad hoy dadku ay ku soo hirtaan burburkii markuu dhacay nin walba meel buu ka baxay laakiin dad qof walba wuxuu noqday meeshuu lahaa halkanina waxay noqotay hoygii dadka martigeliyey hoygii dadku isugu yimi meeshii laga aasaasay Soomaalinimada iyo dawladdan ay maanta haysanno waxayna ahayd xusuus qof walba ku weyn oo si fiican loo xuso mudane ugu dambeyntii maxaa farin u reebaysaa shacabka reer Puntland ku daawanaya Puntland waxaan u dardaarmayaa waxaan farayaa yariyo weyn dhalinyaro caruur iyo ciroole bulshada guud ahaan midnimada Puntland inay maqadis tahay in ay lagama maarmaan tahay midowga iyo nabadda iyo wadajirka Puntland in la ilaaliyo horumarka iyo wadajirka in laga shaqeeyo in dhalinyarada guud ahaan ay dawladda la shaqeeyaan midnimada ka shaqeeyaan nabadda ka shaqeeyaan si horumar loo gaadho dhulkan inaga leh Soomaalinimada waa wax la wada leeyahay laakiin lahaanshaha gaarka ee Puntland in la ilaaliyo midnimada Soomaaliyana laga shaqeeyo sidaynu horeba uga shaqeynay marka waa guul isku duubnida Puntland iyo mujtamaca dhalinyaro ciidan bulsho qof walba waxay noqonaysaa horumarkii meeshii laga soo qaaday iyo meeshaynu maanta marayna wax weyn baa u dhaxeeya si aynu meel kale u gaadhno sanadkiisa daawadayaal waxaan filayaa inaad si fiican uga bogateen taariikhda Puntland oo ay idin go waramayeen siyaasiyiin iyo waxgarad iyo odayaal waqtiga goobjoog ku ahaa meeshii lagu aasaasiyay dawladda Puntland ugu dambeyntii mar dhow waxaan soo gali doonaa muuqaal live oo kala socon doontaan warbaahinta dabarani media inki la socod wanaagsan